الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال إن شاء الله تعالى عملوا وحلين فضائل الأعمال أيات جرى وحده. فضائل الأعمال وحوي عمل كستبا وحوليه هي فضائل وحياله فضليه لجهله صلاة وحيله هي فضائل إن سكدوا صونكو حجكو قراءة القرآن سيارة إن لبقضو تدك قرابة إن مقرنة مساكين توحلسيو صدقة وحيابهاس أردن وحي ليهين فضائل وحلره ما دام أي فضائل ليهين إن شاء الله تعالى وحين دونا إننا نكهضلنا شيء له الفضائل الأعمال وحين سوق لنا فضائل قراءة القرآن. قراءة القرآن وشيء مهم أدياب وقفك ولجوس عليا إنه قرآنك برتو إنه قرآنك آخريو إنه قرآنك هبين يمانتي وقت سيو كانس هدوتنا وآخريو ولجوس عليا لكن قفك هدو فهمو أما وآخريو فضائل القرآن وحقفك سلجيابا أما ودويها إنه كدلالو قرآنك إنه آخريو sababtoo shaygan fadligiisii iyo darajadiisii iyo wixii lagu heli lahaa ayuu og yahay ama uu yaqaana wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam an abi umama radiyallahu anhu qala sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri asxaabigaas waxa maqlay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo leh iqra'ul qur'aanka akhriya fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati شفيعا لأصحابه وحاد أخردان أيوليه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنك أخريا ووقت سيا وكسع العليا وغيران هديتون تنبك حنقته أخريا قرآنك محايا لما أنت يوم القيامة وحو إيمانيا إساقو أشفاعيا أما أهل يبا دادكي أخرين جري أصحابتي قرآنك dadkii asxaabta quraanka la ahayd ee quraanka akhrin jirtay ay ku dhaqmi jireen kuwaas ayuu maalinta yawmal qiyaame u hadlaya maalinta yawmal qiyaame waa maalin la naxsan yahay waxa laga yaabaa dadku baqaar kamid ah oo far badan inayna hadli karin maalintaas cabsi awgeed iyo maalintaas khabarka iyo waxyaala markaana xitaa hadii ahli kar weydid waxa ku hadlaya quraanka maxaad u maleynaysaa qof quraanku uu u hadlayo quraankii adduunyada la keenay ee isaga daraadii ma garanaysaa dadka loo kala qaybiyay gaal iyo muslim loo kala qaybiyay oo janno iyo naar loo abuuray quraankii isaga daraadii qofna gaal loogu dhahayo qofna muslim loogu dhahayo qofkii rumeeyay quraanka uu muslim u yahay qofkii rumeyn waayena uu gaal yahay quraankaas qof uu u hadlayo oo waliba uu kalaamkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yahay bal maxaa u maleynaysaa waxa weeye waa fadli aad u weyn waa qofka quraanka uu hadlo waa qof nasiib leh nasiib adduun iyo mid aakhiraba waa qof qaatay adduunyadana wuxuu leeyahay fawaa'id aan la soo koobi karin fawaa'id بعض العلماء waxay dhahan qof quraanka akhriya Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka kuma baduleeyo waligaa ka yaabin adigoo quraanka akhrinaya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka ku duleeyo waligaa taas naba dhacso sababtoo ah kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa akhrida markaana quraanku maalinta yawmal qiyaame wuu u hadlaya dadka isaga hadlaya isaga ku hadlaya isaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku weydiinaya inuu naarta uu ka badbaadiyo jannadana uu ku galiyo markaana waa in lagu dadaala quraanka asxaabi kale wuxuu leeyahay sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam waxa maqlay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam isagoo leh yu'ta yawmal qiyaamati bil qur'aan maalinta yawmal qiyaame waxa la keenaya quraanka wa ahluhu iyo ahlkiisa alladina kaanu ya'maluuna bihi fi dunya kuwaasoo adduunyada markay joogeen ku amal fali jiray adduunyada markay joogeen kuwaasoo ku amal fali jiray ayaa la keenaya quraankii iyo ehelkiisii ayaa la keenaya taqdumuhu
ay hogaaminayso qur'aankaas ay hogaaminayso suuratul baqara wa aala cimraan labada suuradood ee hadeerba qur'aanka ugu horeeya ee ay hogaaminayaan labada suuradood ay hogaaminayaan tuxaajaani can saaxibihima waliba labada suuradood oo u doodaya saaxiibkood oo kii akhrin jiray u doodaya maxaa yeelay adduunya aakhiro waa la isleeyahay qof kastaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ciduu saaxiib ka dhigto ayuu raaciyaa dadkii gaalada jeclaaday ee gaalada saaxiib ka dhigtay kuwii ma garanaysaa baadilka u hiiliyey kuwii daalimiinta soo ag istaagay ee iyaga u hiiliyey kuwii ma garanaysaa shaydaan caabuday ee shaydaan raacay kuwii waxyaabahaas xunxun macooda noqday maalinta yowmal qiyaamana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga macooda ayuu ka dhigayaa oo iyagaa la isku soo xashrinaya iyaga ayay isku meel ma garanaysaa lagu wada cadaabaya oo qofkii adigu aad jeclayd ilaahay mugaalkii adduunyada ugu weynaa noqdo ee ugu dembiga badnaa ee ugu macaasida badnaa qofkii aad jeclayd oo aad raaci jirtay oo akhbaartiisa aad dhegaysan jirtay oo adigu isaga aad habeen iyo maalin ku fakari jirtay qofkaas ilaahay hadduu doono shaydaan noqde qofkaas ayaa raacaysa maalinta yowmal qiyaame markaana qofkii qur'aanka akhrin jiray ee qur'aanka miciisa markastaba ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka ayuu raacinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejinayaa qur'aanka maalinta yowmal qiyaame iyo dadkii qur'aanka ehelkiisa ahaa ee ahaa kuwii akhrin jiray kuna dhaqmi jiray qur'aanku waxaa la doonayaa ku dhaqan in lagu dhaqmo iyadoo ay hogaaminayso labada suuradood suuratul baqara wa suura al cimraan iyadoo ay hogaaminayso iyagoo waliba u doodaya qofkii akhrin jiray markaana waxaa la doonayaa insha allahu tacaala inaynu ku dadaalno qur'aanka inaynu fursad weyn aynu siino inaynu waqtiyo badan aynu siino oo qofkii sanad isku xiga qur'aan badan akhriya sanadka dambe wuxuu imanayaa isagoo saaxibul iimaan ah qofkii sanad qur'aan ku dadaala sanadka labaad wuxuu noqonayaa akhul iimaan wa saaxibu qof iimaan leh oo dareen islaamnimo oo wanaagsan leh nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiis uu warinayo Uthman ibn Affan khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu fadaa'isha walaalayaal uu leeyahay qur'aanku waxaa kamid ah fadaa'isha uu leeyahay waxaa kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrukum waxa inuu ku khayr badan man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu qof qur'aanka bartay oo xifdiyey oo akhriyey oo macnihiisa iyo tafsiirkiisa bartay hadhowtana dadkii baraya markaana kaas ayaa ugu khayr badan dadka ayuu ku leeyahay markaana nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlayaa qofka qur'aanka barta ee dadkana bara marka qofkii qur'aanka bara waxa ugu horeeyay qofkii xifdiyey dadkana xifdisiya waxa ku xiga qofkii xifdiyey bartay micnihiisa iyo tafsiirkiisa bartay kaasana ka darajo weyn ka kale markaana waxaa la doonayaa qur'aanka xitaa hadaa xifdiyid oo abaratid inaad tafsiirkiisa iyo micnihiisa abaratid ma aha qof weyn oo ma garanaysaa qur'aankii xifdiyey oo qur'aankii garanaya oo tafsiir masaajidka ku dhow masaajidka magaaladiisa ah tafsiirkaas oo uu ka socdo qofkaas oo haduuna aadayn qofkaas waa qof qur'aanka ilaahay dayacay waa qof isagu istayacay maxaa yeelay bil kaliya oo aadid ayaa waxay ku barasaa bisha kaliya ina habeen kasta tafsiirka aadid waxaa la dhahaa dadka marka laga sheekeynayo camalada la laasimo waxaa la dhahaa qofkii 20 maalmood ama 22 maalmood ama 25 maalmood meelaha camal ku dadaala uu la qabsadaa markaana bisha hore hadaa ku dadaashid tafsiirka hadii aadid waxa weeye waa la qabsanaysaa oo marka dambe caado iyo dhaqan bay ku noqonaysaa hadhowtana markastaba waa aadaysaa
markana waxaa la doonayaa in lagu dadaalo tafsiirka oo la aado oo la dhageysto oo ma garanaysaa sidaas qur'aanka loo barto. hadhowtana fursad waxaa helaysaa inaad dadkii tafsiirkii iyo qur'aankii bartid, maxaa yeelay dee adigiiba yaqaana. qofka wuxuu yaqaanana wuu ku dadaalaa inuu dadka baro.